iyo barnaamijkeeda. Hala dejiyo. waxaa ogol u codeeyay 188 xildhibaan sidaas ay sax ku tahay. xildhibaanada golaha shacabka iyo xubnaha golaha wasiirada waa idin salaamaya. insha Allah taala waxaynu u gudbaynaa dhaarta dastuuriga ah ee uu jideeyay qodobka 104 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan akhrin doonaa dhaartu sida ay ugu qoran tahay qodobka. waxaana diga daba odhan doontaan dhaartaas aan akhri doono isagoo qof walba kitaabka hortiisa yaala gacanta saari doono insha Allah. waxaan bilaabaynaa dhaartii. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. waa mahadsantihiin. Allah idin fududeeyo xilka aad qaadeen. waana idinku hambalyeynaa waana idinku ducaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda. waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyey ee ra'iisul wasaarenimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin. maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen. inkastoo uu dalku galay xilli doorasho haddana golaha wasiirada cusub waxaa hor yaalla dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamari dhalinta barnaamijka xukuumadda. waxaan eebba uga baryayaa subxaanahu wa tacaala in uu u fududeeyo gudashada howlahooda. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaanna hanka ummadda Soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sarreynta sharciga kana turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. ugu dambayn waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay'adaha dowladda guud ahaan gaar ahaanna kuwa amniga. sidoo kale waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalayay guddiyada doorashooyinka ilaaliyaanna qoondada haweenka. meel kastoo Soomaaliya joogto waa iga soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka Soomaaliyeed. waad mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq.